Kala dheeraynta dhalmadu waxa ay keentaa faa'iidooyin kala duwan dhanka hooyada, ilmaha, aabbaha iyo guud ahaanba qoyska dhammaantood. Faa'iidooyinka ay kala dheeraynta dhalmadu hooyada u leedahay waxaa ka mid ah: waxaa yaraanaya dhibaatooyinka uu uurku keeno sida dhiig karka. Hooyadu aad bay u nasanaysaa, waxa ayna waqti u heli sidii ay u soo celin lahayd tamarta iyo awooddeeda inta aanay uur kale yeelanin. Kama welweli doonto uur kale marka ilmihii hore uu u baahan yahay xanaaneyn. Waxay hooyadu naaska nuujin kartaa 2 sano. Tani waxa ay u fiican tahay carruurta, hooyadana waxa ay ka yaraynaysaa halista ah in uu ku dhaco kansarka naasaha ama kan minka ku dhaca. Waxa ay hooyadu waqti badan u heli kartaa in ay aado dugsi oo ay wax barato, in ay shaqaysato, in ay waqti la qaadato qoyskeeda iyo saaxiibadeed. Faa'iidooyinka ay ilmaha u leedahay waxaa ka mid ah kala dheeraynta dhalmadu. Ilmuhu marka uu dhasho wuxuu ku dhalan karaa awood iyo caafimaad. Waxaan uu fursad u helayaa in uu naaska nuugo 2 sannadood. Naas nuujintu waxa ay isu soo dhawaysaa xiriirka hooyada iyo ilmaha, taas oo ilmaha u sahasha la dhaqanka bulshada. Ilmuhu waxa uu helayaa waqti uu ku koro caafimaad ahaan inta aanay ilmo kale imaanin. Waalidku waxay waqti badan u helayaan sidii ay u korin lahaayeen una nafaqayn lahaayeen carruurta yaryar iyo kuwa waaweyn intaba haddii uusan jirin ilmo yar oo la xanaaneynayo. Haddii hooyadu ay aad ugu daasho uurka cusub, waxaa laga yaabaa in ay u weydo waqti ama awood ay ku xanaaneyso carruurteeda. Sidoo kalena waxa ay faa'iido kala dheeraynta dhalmadu u leedahay aabbaha. Aabbuhu waxa uu helayaa waqti uu la qaato carruurtiisa. Wuxuu kaloo waqti uu u helayaa xaaskiisa, taas oo sii xoojinaysa xiriirkooda. Waxaa laga yaabaa in uu dareenkiisu ka helo qanacsanaan nabadgelyo leh oo ku saabsan wanaagga caafimaad ee xaaskiisa iyo carruurtiisaba. Sida ugu wanaagsan ee aad u kala dheerayn karto dhalmada waa in aad la hadasho dhakhtaradaada si ay kaaga caawiso sida ugu habboon ee aad dhalmada u kala durkin karto. Inta badan kaarka caafimaadka ayaa bixiya wixii kharash ah ee ku saabsan kala dheeraynta dhalmada.